waxaan ku dhawaaqaynaa baaq nabadeed gogol xalaal ah gogol nabadeed ah oo aan iskugu imaanno yaan fidinaynaa qaladkaas dhacayna oo balajeesaan ka bixinaynaa walaalaha reer balanballow nabadeey haddaad tihiin reer caabud waaq haddaad tihiin reer dhabadeed walaalayaalow raalli ahaada mariixaanow odayaasha beesha cayr iyo nabadoonadooda ayaa waxay fidiyeen gogol nabadeed oo doonayaan walaalahooda reer balanballa mariixaan in shaqaaqadii maalin dhoweed balanbal agagaarkiisa ka dhacday halkaa lagu xalliyo labada beelood ee walaalaha waxaa ka dhaxaysa colaad soo jireen oo welina maanan arkin sidaa ninkan odagaa oday u hadlayo oo doonaya inuu dadka walaalaha uu nabadeeyo baaqa adeerkana uu soo jeediyey haddaynu reer lababaar miidiya nahay waynu xoojinaynaa lababaar miidiya waa idaacad xor ah oo ka shaqayda geyiga soomaalida oo dhan khaasatan dadka deegaanada isku xeeran dega ee xuduudka ilaa kililka shanaad gobolka qurdhaxe iyo galgaduud iyo mudug dadka intaa isku weerkaa dega ayay lababaar miidiya ka shaqayda danahoodana ka shaqayda waxaynu xoojinaynaa baaqa nabadeed oo beesha cayr ay u dhigeen beesha mariixaan colaaddaa soo jireenka oo aynu ognahay wiilal aad u tiro badan oo beesha mariixaan ay jecel yihiin inay ku dhinteen wiilal aad u tiro badan oo beeshaan cayr ay jecel yihiin ay ku dhinteen si kuwa maanta nool aysan berri nooga dhiman gobasha nabadda oo beesha cayr fidiyeen waxaynu ka codsanaynaa annaga laftirkanagu haddaynu dadkii shacabka ahay iyo dhallinyaradii iyo miilyihiiba aynu nahay gogasha sida walaaltinimada iyo sharafta loo fidiyey oo beesha cayr ay ugu fidiyeen beesha mariixaan wixii qalaf soo jireenahay in laga wada hadlo oo la yidhaahdo war wixii dhacay shalay waa dhaceen wax dambasaysa u dhicin adduunka markii wax dhacaan lama yidhaahdo waxaasay u dhaceen laakiin waxaa laga howlgalaa wixii shalay dhacay oo kale wax lamida inaysan mar dambe dhicin dadka soomaaliyeed markaad dhan kasta ka fiirisid sidii dowladdii dhex nooga burburtay qabiil baa la isku laynayaa maantaa la isweerarayaa berri baa la isweerarayaa saadan baa la isweerarayaa sidii shalan baa la isku laynayaa waxna kama soo naasacdaanayaan midu mid kama xoog badna midu mid ka adkaamaayo meeshii joogtaa dadku marka waxaa rabaa ayaalaha noocaasa cilmi inay ka qaataan oo yidhaahdaan war sidaanu dara nooguma jirtee waynu ku dan seegnay waynu ku wiilal beelnay waynu ku odayaal beelnay waynu ku dad beelnay dantu waxay ku jirtaa inaynu wada noolaanno wada degno walaal ahaanno wada ganacsanno dhulka aad degan tihiin dhul aad muhiim u ah oo xuduud waddan kale ku yaalla weeyaan haddaad ganacsigiinna waddankaa kale u gudbisaan waddankaa kale laftirkiisana aad ka soo qaadaan waxaad u baahan tihiin eed soomaalida kale u gudbisaan adunkuna waad faa'iidaysaan kuwa aad la shaqaysanaysaanna way faa'iidayaan dantu marka waxay ku jirtaa inaad isfahantaan saan dhallinyaro kale nooga dhiman kuwo kale nooga naafoobin hadda dagaalkii maalin dhoweed dhacay dhallinyaradanadii ku dhimatay maantay qofka naxaya maaragtay keliya dhibkaa wuxuu gaaray faamilkii iyo jufadii hoose ee walaalaha shalay naga baxay ay ka baxaan hadday noqoto ilmihii oo ka dhintay hadday noqoto xaaskii oo kale hadday noqoto hooyadiis oo kale dadka noocaas oo kalea ayaa qofkoodii ka baxay dareemaya laakiin adigaadan shacabka ee meeshii degan inaad soo xasuusato ilaahay ha u naxariista tiraada maahane wax culaysa kuguma hayo si marka adiga laftirkaadu aan berri dhib kuu gaarin kuwo kaloo kaasi dambeeyey dhib u gaarin sheekadan waa dheeraatay iska soo gabagabeeya anigaan kaba yaraha kula hadlaaya intaasoo dagaal oo beelahaas leeyihiin ayaan u soo joogay ciiddaasoo dagaal oo aan ogahay dadkaasu inaysan waxbaba kala faa'idin kuwaana ay qaar laayeen kuwaana ay qaar laayeen kuwaana xoolo dhaceen kuwaana xoolo dhaceen qiimadda marka waxay tahay war wixii shalay dhaca waa dhaceen maantay sideen uga shaqaynaa inaan wax damba dhicin adeerkaa baaqa uu soo jeedinayo beesha mariixaan waa inay aqbashaa adeerkaasi inta la socotana baaqa ay jeedinayaan waa inuu mid dhaba noqdaa gobasha markii la iskugu yimaad waa inaan gocosha jirin haddaad mariixaan tahay maanta ka hor wixii dhacay waa inaadan gogoshaa ku soo qaadin haddaad cayr tahana maanta ka hor wixii dhacay waa inaadan gogosha ku soo qaadin sababtoo ah dhibaato aad u badan bay dadkaas ku geysteen hala xisaabiye haddii la yidhaah adinkuna waad ku dawaqaysaan waxa ka muhiimsan kii dhinta waaba dhintaye ka nool inaad maanta badbaadisaan oo antaad wixii hore ka tanaasushaan aad meel isla dhigataan war maanta kadib wixii dhaca qofkii geystay ayay ku suntan yihiin
nin mareexaana dhib geysto waa inaysan mareexaan ku suntanaan ee qofka dhibka geystay ee ku suntanaataa haddii nin reer ayaala ama cayra uu dhib geystana sumadaas waa inay asaga ku suntanaataa waa inaad go'aanka noocaasa isla qaadataan nabadna aad ku heshiidaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaynu xoojinaynaa gogasha adeerkaasu dhigay haddaynu nahay Lababaar Media maadaama deegaanadaas aynu ka shaqayno oo Lababaar Media oo mareexaan wax ka leeyahay oo cayr wax ka leeyahay oo ogaadeen wax ka leeyahay sababtuna waxay tahay deegaanka ayaynu wada leenahay maadaama deegaanka aynu wada leenahana idaacadda waynu wada leenahay idaacaddu waa idaacad Soomaaliya dhanba ka howlgashaa laakiin fadhigeedu waa deegaanadaas aad iyo aad baad muuqaalkan idinku soo garo waa muuqaal nabadeed waxaan si sharaf iyo karaamaad kaaga codsanayaa inaad meel fog ila gaarsiidid sida baaqaan aan u dirayo beesha mareexaan oo aan ka wado beesha cayr waa inaad ila gaarsiidaa soo meel fog u gaaro muuqaalka waa inaad sheer saartaa waa inaad la garaysaa xumaanta waad ka qayb qaadan lahayd samaanta iyo nabadda iyo walaalahan dhiig joojinta aan u samaynayno waanaad ka qayb qaadataa dad beesha mareexaan ka mid tahay oo muuqaalkan ku soo gaaro mareexaan oo dhan adaan ku xil saaraya iga gaarsii WhatsApp-ka ugu dir Facebook-ga ugu dir meel kastoo wax la iskugu diri karo ugu dir aad iyo aad baad mahadsantihiin reer Lababaar Media haddaa tahana taa kuma weydiin maayo reer Lababaar Media taa inaan ka wada hadalno qalad waaye waajibay kugu tahay